kulanti hagaagsan halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa qayb ka madaxweyne Farmaajo oo magaalada Muqdisho ka wada qorshe ka dhana Rooble iyo arinta doorashada gobolka Gedo. Farmaajo iyo Rooble oo mar kale isku arkaya doorashada gaalkacyo iyo 3 kursi oo muhiim oo tartan xoogan uu ka dhacayo oo ay galmudug shaacisay. beesha caalamka oo digniintii ugu dambeysay siisay maamul goboleedyada uguna hajabtay cunaqabateyn degdeg ah haday ku soo dhameystiri waayaan doorashooyinka dalka waqtiga loo asteeyay. iyo taliyaha ugu sareeya ciidamada dalka Uganda oo ku dhawaaqay inuu shaqada iskaga fariistay kadib 28 sano oo uu shaqeynayay dalkiisa Uganda. qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu faaqidi doonaa oo diyaar garooba. fadlan daawade ma tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay jawaabtaadu haatay ha moogana subscribe saarta YouTube-ka oo aad ka mid noqotaa asxaabta halkan ku xiran mahadsanid. madaxweyne Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ku tagay dalka Qatar ayaa lagu soo waramayaa inuu waro qorshe iyo abaabul uu ku doonayo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu mar kale ku qaado dagaal siyaasadeed oo ka dhana. wararka aynu helnaa tibaaxayeen arintan ay ku saabsan tahay deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee gobolka Gedo iyo sidoo kale caqabadaha uu Fahad Yaasiin kala kulmay Rooble iyo guddiga doorashooyinka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu la kulmay xubnaha sarsare ee la taliyaashiisa gaarka qaar ka mid ah saraakiisha waxaana la sheegay inuu ballanqaadyo cusub u sameeyay asagoo sidoo kale qaar ka mid ah madaxdii uu la kulmay la sheegay inuu lacago uu siiyay oo ugu yeeray Sooriyo taasoo la aaminsan yahay dawladda Qatar uu ka soo qaaday. la taliyaasha madaxweyne Farmaajo waxa ay isla la fagureen siday muhiim u tahay in doorashadu ay ka dhacdo Garbaharre iyadoo kuraasta halkaasi taala ay soo qaadanayso filla Soomaaliya si loogu galo dib u doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wararka iyo macluumaadyada aynu helnaa ayaa sheegaya in Farmaajo iyo kooxdiisu ay ka fakarayaan in magaalada Garbaharre ay u diraan wafti ka socda madaxtooyada kuwaas oo ka shaqeynaya sidii doorasho halkaas ay uga qabsoomi lahayd. Farmaajo iyo kooxdiisu waxay doonayaan in magaalada Garbaharre loo ekaysiyo meel ay doorasho ka dhici karto isla markaasna laga hortago go'aamada ay soo wadaan Rooble iyo Axmed Madoobe. sidoo kale filla Soomaaliya waxa la sheegay inay go'aamisay markii la gaaro 15 bishaan ay ku guda jirno ee Maarso hadii doorashada lagu soo gabagabay waayay gaar ahaan arinta gobolka Gedo in madaxweyne Farmaajo uu soo saari doono waraaq uu ku sheegayo in Rooble uu ku fashilmay doorashada inta ka dhiman isla markaasna asagu uu soo dhameystirayo deegaan doorashada ugu dambaysa ee Jubbaland taas oo aan loogeyn ilaa iyo haatan sida ku suurtagali karto. ujeedka ugu weyn ee Farmaajo arintaas u adeegsanayo ayaa inaan doorashada laga wareejin magaalada Garbaharre. waxa kale oo xafiiska Farmaajo laga diyaariyay qorshihii looga hortagi lahaa hadii Rooble iyo Axmed Madoobe ay ku dhawaaqaan go'aan deegaan doorashada looga wareejinayo magaalada Garbaharre. warar iyo macluumaadyo ayaa sheegaya inay socdaan isku dayo xoogan oo dhinacyo kala duwan ka imaanaysa taas oo xal loogu raadinayo arrimaha doorashooyinka gobolka Gedo. Rooble iyo Axmed Madoobe iyo sidoo kale maamulka gobolka Gedo ayaa la sheegay in arinta ugu weyn ay ka dhax taagan tahay. Rooble ayaa la sheegay inuu wajahayo caqabad aad u daran marka loo eego barihii qoreetay ee doorashooyinka dhaqaajinteeda maadaama ay Jubbaland doonayso in ayadu maamusho doorashada gobolka Gedo. maamulka gobolka Gedo ay doonayaan inay Axmed Madoobe iyo maamulkiisa ka madax banaanadaan filla Soomaaliya ay doonayso inay faragelin ku sameyso doorashada gobolka Gedo taas oo la sheegay inay caqabad weyn ku noqoto Rooble. lama oga arintaas sidoo uga dabaalan karo balse waxa la sheegay laftigiisu inuu wado kulamo gooni oo uu la qaadanayo la taliyaashiisa siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed taas oo kala hadlayo waxa laga yeerayo arinta magaalada Garbaharre. xubnaha beesha caalamka ee Soomaaliya taageera waxa ay gaarsiiyeen dawlad goboleedyada digniintii ugu dambeysay hore cunaqabateyn ay u shaaci lahaayeen qaar ka mid ah dawladaha taageera Soomaaliya oo Mareykanku ku jiro ayaa si hoose loo shaaciyay iyadoo aan la sheegin magacyada iyo shakhsiyaadka lagu soo rogay. sidoo kale tan laba ballaarin cunaqabateynta iyo sidoo kale xayiraadda dhinaca fiisaha
iminka waxaa la xaqiijiyay in safiirada wadamada hesheeye ee ku sugan xaydaabka Xalane inay waraaq u qoreen dowlad goboleedyada taas oo ay uga codsanayaan in doorashooyinka lagu soo gabagabeeyo waqtigii ugu dambeeyay ay qabsadeen ee ku beegan 15 bisha Maarso taas oo haddii ay dhici weyso ay la kulmi doonaan cawaaqib aad u adag iyo tillaabooyin ay ka qaadi doonaan xubnaha doonaya in doorashooyinku ay dib u sii dhacaan. beesha caalamku waxa ay sheegtay in guud ahaanba ay go'i doonaan taageerada la siiyo dowladda federaalka Soomaaliya taasoo sidoo kale ay sii dheer tahay iyadoo cunaqabatayn lala kori doono cid walba oo lagu helo inay doorashada ay u cagajiidayso oo ay diidayso inay doorashada soo gabagabayso. dowlad goboleedyada ayaa wali xibna ku dhiman yihiin intooda badan marka laga reebo deegaan doorashadii Muqdisho oo lagu qabanayo kuraasta gobolada waqooyi iyo Banaadir oo ra'iisul wasaare Roble iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ay korjoogto ka ahaayeen. dowlad goboleedyada kale waxaa la sheegay in wali ay xibna ku dhiman yihiin taasoo ay macquul tahay inay dib uga dhacdo waqtiga loo asteeyay ee 15 bisha Maarso. waxaa la xaqiijiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu dadaal ku bixinayo in doorashada waqtigaas lagu soo gabagabeeyo waxayna dadka qaarkood su'aal iska weydiinayaan sida laga yeelayo arrinta gobolka Gedo oo wali aysan fari ka qodnayn. xubnaha beesha caalamka waxa ka go'an dhaqaalaha Soomaaliya laga jarto haddii madaxda Soomaalidu ay ku guuldareystaan inay doorashada ku soo dhameeyaan waqtigii ugu dambeeyay ay qabsadeen iyo in cunaqabatayn lagu soo rogo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda kuwaas oo ku eedeysan inay marba marka ka dambaysa ay doorashada caqabad hor dhigayaan. xafiisyada dalka ugu sareeya ee filla Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa mar kale isku arki doona doorasho ka dhacaysa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. mar kale ayaa tartan xoogan gali doonaan labada dhinac iyadoo dhawaan afka ciida loo daray dhinaca madaxweyne Farmaajo oo doorashadii kursiga Hoob 60 looga guuleystay. guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa soo dhajiyay kuraasta 3 kursi oo ay kala ah Hoob 38, Hoob 69 iyo Hoob 95. saddexdan kursi waxaa ku kala fadhiyay Axmed Macalin Fiqi, Cabdikariin Dhalac iyo Cabdiraxmaan Dawaah. saddexdan mudane waxay iminka wajahayaan caqabad xoogan oo ku saabsan tartan iyo loolan xoogan oo lala gali doono. kooxda filla Soomaaliya waxay waqti gelinaysaa in ay tartankan qayb weyn ka noqoto gaar ahaan kuraasta Hoob 38 iyo Hoob 95 oo durbadiiba ay soo shaac bixeen musharaxiinta ay doonayso inay ku taageerto doorashada kuraastaasi. inkastoo kuraastaani la doonayo inay furnaadaan oo dhammaan musharaxiintu si wadajir ugu tartamaan haddana dhinacyadu waxay kala aaminsan yihiin inay soo kala saartaan shakhsiyaad daacad u ah. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaana waqti badan gelinaya in doorashada Gaalkacyo uusan Farmaajo ka helin codad uu ku tarshado dharaarta doorashada sida ay wax yihiin. doorashadan waxaa la qaban doonaa 3 kursi 12 bisha Maarso ee sanada 2022 iyadoo la soo gabagabayn doono 3 kursi maalinkaasi. Galmudug waxaa guud ahaanba markaasi ku dhimanaanaysa 3 kursi oo kaliya. dowlad goboleedka Galmudug ayaana noqon kara maamul goboleedka koobaad ee doorashada soo afmeera sida uu qorshuhu yahay. taliyaha ugu sareeya ciidamada dalka Uganda ayaa ku dhawaaqay go'aan aan laga filayn. taliyaha ciidanka xoogga dalka Uganda sareeya Gaasa Mohansi ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu howlgab noqonayo shaqadana uu ka fariisanayo ciidamada kadib 28 sano oo uu shaqada qaranka ku jiray. codsiga howlgabnimada ayaa la rajeynayaa in laga aqbalo iyadoo la marayo sharciga military ee 2005. waxa uu qoray fariin kadib 28 sano oo ka mid ah ciidamada wadankaas isla markaasna uu jagooyin kala duwan ka soo qabtay qaranka dalka Uganda. aniga iyo askarteedu waxaynu ku guuleysanay hawshina loo idmado waxaana jeclahay inaan xushmeeyo saraakiisha ku guuleysatay meel walba. saraakiil sarsare oo dalka Uganda ka tirsan oo ku jira madaxii sirdoonka wadankaasi General David
ayaa kol horeeta loo diiday in laga aqbalo codsiga howlgabnimada sida aynu kasoo xeeganay military Uganda. diidmadani waxay salka ku haysaa iyadoo saraakiisha khibradda leh ay doonayso Uganda inay kasii shaqeeyaan ciidamada xooga dalka wadankaasi Uganda. warkaad ka daawanayseen dunida TV waa intaas, sidaas iyo amaan Allah.